hadday kelmad dambe ka yiraahdaan hargeysa waxaanu soo xiraynaa xadka waxaanu ku soo soconnaa waa guryihiinna weey hadday mar dambe dhulkayaga sheegtaan waxaanu ku soo duulaynaa waa dhulkiinna weey waxaan si guud uga oranayaa kelmatayn salaadiinta reer Sheekh Isxaaq bari iyo bogox ka hadlayay waxaan leeyahay maanta baynu is afgaran karaa hadal aanu garan karayno maanta baad ku hadasheen intaanu idinla hadlaynay 15 sannadood aanu idinku lahayn walaalahayow naga kaxaysta wiilashiinna naga kaxaysta ciidankiinna guryihiinna ku noqda aad buurta dheer dusha ka saaraydeen qaran baa jira dawlad baa sidana waxaan aad sheegayseen waxaynu ku wada hadallo maanaan garanayn si aanu idinla hadlanaan maanaan garanayn inaannu idin abhino mooyaane maantaannu idinla hadli karaynaa mar haddaad tidhaahdeen reer hebel annagoo waannu afgaran karaa wiilashiinna haddaad ceshanaysaan wiilashayada waa ceshanaynaa haddaad ceshan weydaanna ceshan weyno ninkay hali ugu dhashay iyo ninkay ugu badisa aynu aragno ninkii wanaag ka maala iyo ninka xumaan ka maala aynu aragno ceshta wiilashiinna hadday kelmad dambe ka yiraahdaan hargeysa waxaanu soo xiraynaa xadka waxaanu ku soo soconnaa waa guryihiinna weey hadday mar dambe dhulkayaga sheegtaan waxaanu ku soo duulaynaa waa dhulkiinna weey qabsada oo xirta oo ceshta oo xakamaysta wiilashiinna markaasaannu xakamaynaynaa haddii kale waxaannu idin leenahay maamulka SSC wuxuu daba joogaa dadkii dhibaatada ka sameeyey ilaahay hadduu ku leeyahay laascaanood kuwaasuu baadi goobaya idinka idiinma socdo ilaa hargeysay joogaan halkaasuu ka soo qabqabanaya uga leexdo isu daaya afkayagu taasuu noqon doonaa haddaadse wiilashaya tidhaahdaan ama waa habar jeceloo annagaa ceshanayna ama waa reer Isxaaqoo waa ceshanaynaa maalintaasaynu is afgaranaynaa maalintaasaynu wada hadli karaynaa maalintaasaa nabad inoo horraynaysa taa ku biyo cabba oo ku seexda oo ku soo toosa wabilaahi tawfiiq aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed salaamu alaykum wa rahmatullahi